بسم الله الرحمن الرحيم عشركنا وحول حل عشركي هوري ku saabsanaa pseudo classes waxaan ku soo aragnay basicskii sidee loo doortaa cunugga koowaad ama elementiga ugu horeeya elementiga ugu dambeeya ama elementiga noociisa oo kale uu ku jiro parentiga ee ugu dambeeya iyo kan ugu soo horeeya sideen hore u soo sheegnay pseudo classesku way farbadan yihiin waxaan eegaynaa maanta qaybta professionalka ee sidee u sameyn kartaa kuwa tayo leh oo dadka soo jiita ama adiga soo jiita tusaalahan waxaan ka soo qaadanaynaa bootstrap framework oo ah front end web development oo in badan maqasheen hadda tusaale markaan tableskooda waa tusaale tableka markaa ku dartid way keenan class la dhaho table hawfa saasoo kale noqonaya tusaalahoodii halkan ka bixinayaan haddaan tablekan aad ku dartid mataqaan adaan CSS isticmaalinba tableka u bixisay stripped qaab noocaas oo kale kaga dhigaya marka bal qaab noocaas oo kale sideebaynu inagu CSS ka nagu dabaqnaa maadaama bootstrap ku yahay CSS iyo JavaScript isku jira sideebaynu u sameyn karnaa tables u eeg sida bootstrap oo kale qofkii yaqaan u yaqaan qofkii kalena waa soo baari kartaa bootstrap frameworks aad ayaad ugu arkaysaa website-dada waxyaabo noocan oo kale aad ku aragtid waxa lagu sameeyaa bootstrap qori meeshid wax CSS fara badan tableka waxaa siinaysaa class loo table kabacdi table qurux badan ayuu ku sameeyaa waxaan oo dhan ayuu isagu ku dabaqayaa soo bal sideebaynu u sameyn karnaa ugu horeyn waxaan leenahay kuwan iska taatiraynaa last of type iyo first of type so waxaan leenahay table row haddii ay tahay baan leenahay nth child nth waa number taxana ama sequence so waxaan isticmaali karnaa waxa la dhaho positions waxaanu kaloo isticmaali karnaa waxa la dhaho numbers so odd ayaa ku jirta oo uu yaqaanaa odd waxa weeye dhaban so dhaban iyo kinsi waa kala taqaaniin waa tirada is dheer iyo tirada is leeg inta badan waa isku khaldaa so waxaan leenahay table rowga kasta oo odd ah waxaad iga dhigtaa sidan soo socota waxaan leenahay tusaalahan waxaan ku dayanaaba tablekan oo ahaa bootstrapka qaabkiisa oo kale waxaan leenahay ka dhigtaa background color gray so ujeeda mid walba odd ah wuxuu ka waxaan kinsi ah wuxuu ka dhigay gray backgroundki haddii doon waxaan dhigi karnaa colorkan cadaan ka dhig so waxaad bedeli kartaa wax fara badan sida mar walba idin xasuusiyo waxaad ka dhigtaa FFF ama white so ujeeda inuu ka duwan yahay haddii aan marka tablekana saa usii durkiyo oo rowyo kale ku sii daro mar walba rowga ah kinsiga ayuu wuxuu ka dhigayaa waxa la dhaho midabka greyga siinaya sida aad u jeedaan bootstrapka kale uu isticmaalayo so waxaan kala bedeli karnaa even baan dhihi karnaa even oo ah dhabanki haddii aad aragtid even waxa weeye ka labaad oo tiro walba oo hal waa isticmaali halkan no problem saddex buu ku joogay kan waxaan dhihi karnaa afar kana shan waayo laba koob yaan ku daray soo koowaad kii koowaad ka kii labaad buu saaray kii saddexaad saasoo kale wada any midab ayaynu ka dhigan karnaa midab waxaan ka dhigan yellow ayaynu ka dhigan karnaa FF9 any midab ayaa ka dhigan kartaa qaab noocaas oo kale waa qaabka aad sameyn kartid waxaa jira qaab oo ku saabsan waxa la dhaho algebraic formula bal kaba soo qaad haddaan doonayo inaan 3 tago haddana 6 sii tago saasoo kale marka waxaa isticmaali doonta algebraic bal intaan algebraic u gudubgelin waxaanu sameyn karnaa kale inaan isticmaalo number soo xalay karnaa koowaad oo walba sida ha noqdo sida u jeedaan koowaad uu yahay midabka la dhaho black soo kii koowaad wuxuu noqday black tan oo kale isticmaal ka labaad aan dhaho black ka dhig labaad ka dhig ka saddexaad ka afraad ka shanaad number aan ku jirna hadaan dhahana deemaba ku jira baatin kale ma gaadhin soo kan waa u deynay inuu black noqdo qaabka kale aynu eegna waxa weeye markaan rabno specific pattern ama taxane aynu inagu rabno soo xalina table rowga cunuga taxanihiisu yahay marka waxaan sameyntaa brand bracket surface so waxaan isticmaali karnaa waxa la dhaho tusaalahan background color midab adeen bracket hadii doon waxaan isticmaalnaa midabka la dhaho e oo yara gray ah so waxaan isticmaalnaa markan qaacidada la dhaho an plus b background ka dhiga tusaalahan hadaan doono cadaan si aynu u fahanno waxa dhacaya meesha b-dan waa elementiga aad ka bilaabaysid n waa numberkan oo marba sequence taxana 0 1 2 saasoo soconaya any number weeye eeduna waxa weeye numberka aad doonaysid intaad skipping ka samaysaa ka boodaysid tusaalahan waxaan leenahay b-du waxaan ka bilaabayaa maadaama uu kugu horeeyo headerka yahay labaad baan ka bilaabayaa soo haddaan labaad ka bilaabo oo inta ka tago n plus 2 waa 0 oo n plus 2 mar walba saasoo si taxayaayo dee waxba isbedeli maayaan sababtoo ah n waxay u taagan tahay 1 haddaan 1 ka dhigana waa same laakiin bal haddaan 2 ka dhiga micnaheedu maxay tahay waxaa ujeedaa elementiga labaad inuu ka bilaabay haddana ka mid ka booday ka waxuu tagay ka afraad waxaan yidhi waxaa ka bilowdaa ka labaad oo b ahaa 2 times 0
plus 2 wuxuu ka bilaabaa 2 times 1 oo ah 2 lagu daray 2 waa 4 so wuxuu tagay godka afraad so 1 2 3 4 iyo way kugu horeey uu ku daray adigu tiradan ha eegan waxaan isku xigaan ma rabo inuu 1 iyo 3 isku xajiyo oo labadan ka booda ka hor halkan waxaan leeyahay waxa skipping waxa leeyahay godka saddexaad kalabaad buu joogaa oo midba ka sareeya ka saddexaad buu tagay sidaas aan soo wada karnaa markarna waxa isticmaali kartaa waxa loo algebraic formula waana qaabka uu shaqeeyaan bootstrap bal haddaba sidee baynu table-keena uga dhigan karnaa qaab bootstrap oo kale intan inaga waxba ka bedelin baynu waxaan u sameynaa class la dhaho order bida table-ka bootstrap oo kale qofkii yaqaan garanaya table-ka waxa class-ka waxa la border soo waxaan border iyo waxa la wixii intii hore aynu haysanay soo hoos kala sababta elementiga iyo labada element markay soo aragn selectorska markii space loo dhaxeeyo waxa weeye waa any element oo jailkiisa cunugiisa soo waxaan tagnaa table-keeni waxaan ku daraynaa mar hadda waxba iska bedelin table-keeni waxaan ku darnaa class la dhaho class waxa la dhaho border markaan ku darnay table-ka ujeedayno sidii bootstrap oo kale uu noqday border amazing so border-ka table-ka waan tijaabinay border buu sameeyay sida aan hore soo sheegnay haddii rabno class kale ku soo danaxanahay tr colon have kadib waxaan leenahay background color ayaynu sameynaa waxaan soo qaadanaa background color kala dhaho black oo 333 soo hadda marka dul istaagno ujeeda midabka black-ga inuu soo baxay soo sideen midabkan ugu dabaq karnaa class ahaan sidaan la dhaho have magaca dinto bixin kartaa ama dul istaaga dinto bixin kartaa class-ka marka rowga la dul istaago sidaa yar soo hadda dul istaago waxa dhacaya soo hadda border-kan ka guurno oo bixino have table-keenan ujeeda marka dul istaagno inuu midabka ayaan hadda waxaan dhigi karnaa midab qurux badan oo ah green weedii kana soo marka dul istaagno midabka qurux badan green-ka ayaa soo fuulaya sidaas si lamida laba class waa siin kartaa oo have iyo kii ah border soo border-ku saaran yahay sidoo kale have uu qaadanaya sida bootstrap oo kale uu leeyahay class la dhaho border iyo class la dhaho kanoo kale waa border-kii mid kale strip la dhaha jiro oo qurux badan kanoo kale waa have oo qaabka inagu keenoo kale yahay oo ka qaabkan oo kale weey marka aad iyo aad ayuu mahadsantiin waxaan rajeynayaa inaad practice gareysaan wabillahi tawfiiq